dib u heshiisiin waa shaqo loogu talagalay ummad ama dad iskhilaafsan inay wada hadlaan kana wada hadlaan inay ka heshiiyaan caqabadaha dhexdooda yaal waxaa tiir muhiima u ah hadal ama wada hadal mithaal haddaan hadal jirin ama wada hadal jirin xataa qoys ma dhismo waxyaabaha hogaaminta dib u heshiisiinta ama heshiisiinta ugu baahnay waxa weeye xiriirkeennii baa xumaaday wada shaqaynteenii baa ummad ahaan xumaatay midnimadeennii baa xumaatay walaalnimadeennii baa xumaatay nabadeennii baa xumaatay cadaaladdeennii baa xumaatay sidaas daraaddeed si wanaag loogu bedelo waxyaalahaas oo idil waa in dib u heshiisiin dhaba ii dhacdaa waa inay dib u heshiisiintu ka bilaabantaa qofka laftiisa waxa weeye qofkii baa naftiisa la heshiin dib u heshiisiintaan u baahannahay inagu ka Soomaali ahaan horta waa mid elite-ka loo baahan yahay dib u heshiisiintu maaha hawl inta badan u taala dadka caamada iyo dadka caadiga waa hoggaanka Soomaalida waxay tiraahdaa marka ceelal iyo heshiisaba xoolo cabaan marka dadka horjoogayaasha dadka horkacaya ayaa loo baahan yahay inay horta dhaliyaan dib u heshiisiinta in badan baa laga shaqeeyay waxaan u malaynayaa shirkii Muqdisho lagu qabtoon xusay mar dhow wixii ka horeeyay waxa la heshiisiinaya kooxo siyaasadeed ama jabhado inkastoo Djibouti shirka carta lagu bilaabay bulshada rayidka ee Soomaaliyeed yaa dirirsan su'aasha dhinac kale aad ka eegi kartaa waxa oran kartaa yaan dirirsanayn anigu waxaan qabaa taariikhdeena xagga hogaamintu inay markasta liidatay oo berigii hore xataa intaan Soomaalida loo imaan intaan loo imaan way isku dayeen inay dawlado sameeyaan laakiin kuwa yaryar bay ahaayeen oo gobollo iyo meelo gaar ah ka jira bay ahaayeen shacbigu in loo adeego iyaga loo shaqeeyo ma ogeen kuwa qaa'imiinta ah oo ka leexinaya wadada Soomaalinimada iyo xuquuqda iyo cadaaladda ayuu kala sacbinaya marka shacbigu inuu xaqiisa iyo waajibkiisa yaqaano oo yiraahdo waradiga shaqada aan ku dirsanay hadduu ka leexdo wadana leeyahay oo ka qaadanay xilka intaas laga rabaa horta shacbiga waxa loo baahan yahay baa la yiri in la helo abuurid mustaqbal la wada leeyahay hiigsi rajo iyo himilo umadeed oo micnaheedu tahay horta dadkeenan isku wareegsanay iska soo horjeeday xisaabtamaya ee wixii dhacay uu ka wada hadlaya horta intaynu istaagno xaqaynu u soconnaa 30 sano kadib 40 sano kadib 50 sano 100 sano kadib maxaynu rabnaa inaynu noqono